السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. cashirkeena koowaad wuxuu ku saabsan yahay horudhac horta sidiisaba oo xoogaa yaroo faahfaahina oo cudurrada ku saabsan ayaynu gelaynaa. In fact waa cashirka koowaad iyo cashirka labaadba. Marka intaynan cudurrada qaybaha iyo siyaabaha kala duwan ee loo kala qaybiyo aynan gelin, waxaan rabaa inaan isla ogaano horta aynu qeexno waa maxay cudur. Cudur sidiisaba waa maxay? Cudur waxa la yidhi waa marka qayb ama xubin jirka ka mid ah uu wax ku dhacaan qaabkeedu isbedelo, maaha dhaawaca inta badan maaha. Ama xubinta ama waaxda ama qaybtaa jirka ka mid ihi shaqadii ay qaban jirtay waxay iska bedelaan oo shaqadii sideedu u qaban weydo. Waxaa runtii laakiin soo gelaya marka xubin ama qayb jirka ka mid ah iyadoo hadday doonto sideeda u shaqaynaysa, iyadoo hadday doonto qaab dhismeedkeeda aan waxba iska bedelin, haddana ay xanuun iyo dekaan aad u fara badan keento. Xanuunkaa laftiisa ayaa markaa calaamad wax u yahay in cudur jiro. Xanuun iyo cudurna kooraskan waxaad ku arki doontaa inuu kala qaybinayno. Xanuun waa damqasho, halkaasay xanuunaysaa, way ku damqanaysaa weeyaan. Cudurna waa dhibaatada dhabta ah ee caafimaad darro ee jirta, ee jirka jirta. Waayahay marka halkaa waxaan kaga gudbaynaa qeexidii cudur wuxuu yahay. Waxaynu markaa imika gelaynaa siyaabaha kala duwan ee loo qaybiyo qaar ka mid ah. Haddaynu eegno cudurrada mar waxaa loo kala qaybiyaa 4 nooc. 4taa nooc kiisa koowaad waxa weeyaan waxa loo yaqaan infectious diseaseska, cudurrada caabuqa leh wey. Haddii markaa la qeexo waa maxay infection diseases, wuxuu noqonayaa waa cudurro ay keenaan noolayaal yaryar oo ay ka mid yihiin bakteeriyada iyo fayrastu. Bakteeriyana waxaynu insha Allah mar dee program dhan baynu kaga hadli doonaa ama cashar dhan. Bacteria waa kelmad jamaca waxaanay ka timi bacterium ayay ka timi. Marka cudurrada noocaas ee noolayaasha aad u yaryar microorganismka la yidhaahdo, cudurrada ay keenaan laysuna gudbin karo ayaa la yidhahdaa infectious diseases. Marka cudurrada infectious diseaseska loo yaqaano ayaynu tusaale ka soo qaadanaynaa. Waxaa ka mid ah hargabka cudurkan la yidhaahdo, waxaa ka mid ah TB-da, waxaa ka mid ah cudurkan kale ee isagana la yidhaahdo Jones cadka. Jones cad runtii halkan aan ugu yimi deegaanada Soomaalida, laakiin Jones cad macnihiisu waxa weeye waa hepatitis B-ga. Marka kaasaa ka mid ah qaybaha kale kala qaybinta koowaad leedahay wax weeyaan wax la yidhaahdo physiological diseases. Macnaheedu waxa weeye waa cudurro sidii aynu ku qeexnayba cudur wuxuu yahayba waa cudurro qayb jirka ka mid ah ama xubin jirka ka mid ah ay shaqadeedii si fiican u qaban waayeyso ama qaab dhismeedkeeda wax iska bedelayaan. Marka cudurradana waxaa ka mid ah dhowr mar baynu ka soo qaadanaynaa. Waxaa ka mid ah macaanka ama sonkorta, cudurkan sonkorta la yidhaahdo. Waxaa ka mid ah kansarka, waxaa ka mid ah hypertensionka ama dhiigkarka. Marka mid walba si cad baynu u qeexaynaa. Macaanka ka ugu badan runtii waa macaanka la yidhaahdo type 2. Type 2 markaa waxa weeye laba siyood ku yimaadaba la aaminsan yahay. Labadaas siyood ku yimaanay mar waxa la yidhi qanjirka la yidhaahdo pancreaska ama ganaca oo halkan sawirkiisu idinka muuqdo waa kan dheer ee midabka jaalaha leh ama midabka yelowga leh, midabka huruud ah. Qanjirkaas ayaa wuxuu soo daayaa dheecaan la yidhaahdo insulin oo ah hormone. Qanjirkiiba markaa intuu soo daayo cillad isaga ku jirta darteed insulin aan ku filayn ayaa markaa glucose la gubi lahaa ee unugyada la cunsiin lahaa ayaa suuro geli waayeysa. Sidaa darteed ayaa markaa macaan badani u samaysmaa maadaama glucose aan la gubin. Mar definitionkeedu waa sidaa. Mar kalena waxa la yidhi waxay ku timaadaa qanjirku wuu soo daayaa insulin ku filan oo isagu waxba ma qabo ugu yaraan dee haddaad si kale u tiraahdo shaqadiisii si fiican bay u socotaa. Laakiin insulin ku filan markuu soo daayo jirkii insulintaa dareemi lahaa ee akhrin lahaa ee dabeedna insulinta intuu dareemo ka faa'iidaysan lahaa unugyada cunsiin lahaa insulinkii yacni glucose unugyada cunsiin lahaa tamar u bedeli lahaa ayaan akhriyeynba oo fahmaynin, ogaanaynin ama dareemaynin in wax glucose la soo daayay. Marka jirkiiba wuxuu u dhaqmayaa sidii aan insulin la soo daynba. Labadaas siyoodba way ku timaadaa baa la yidhi macaanka nooca khaasatan loo yaqaano type 2.
sidaa darteed ayaa sokorti badataa oo fatahdaa marka la gubi waayo unugyadu qaadan waayaan cuni waayaan tamar u bedeli waayaan waayahay marka horta macaan ama tusaalaha aynu ka soo qaadana cudurradan la yidhaha physiological diseaseska macaanku waa kaa kansarkaa yimi kansar macnaheedu waxa weeye unugyada oo si khaldan oo aan control lahayn u tarmaya oo u badanaya barnaamijyo kale aynu kaga sahli doonaa cudurradan midna fadlan waan idin xasuusinayaa waynad ogaataan sidan aynu cutubka koowaad ama kooraska koowaad ee la yidhaahdo the outlook of the current global diseases modulka ama kooraska aad iminka ku jirto ee casharkiisi koowaad aynu maanta bixinayno ama horudhaciisii waxa weeyaan wuxuu ku barayaa aqoon guud oo sida dunidu maanta aaminsan tahay maaha sidaynu inagu aaminsanayn maaha cilmiga rasmigaana kula doonayna maaha cilmiga sax ana dee ma aha oo waxaynu saxaynaaba khaladaadka ku jira sida loo fahansiiya cudurrada keentay in cudurrada waxba laga qaban kari waayo marka waxaanan imika kuu sheegaya kuu fasirayaa waa sida dunidu aaminsan tahay taa waynaad ogaato cudurka saddexaad ee aynu tusaale ka soo qaadanaynaa waxa weeyaan cudurka la yidhaha hypertensionka ama blood pressureka waa dhiigkarka waxa kaloo ka mid ah iyaga laftoodu physiological diseaseska soo gelaya noqonaya cudurrada wadnuhu ama heart disease waa cudurro badan oo saameeya wadnaha marka lagu daro nusqaan iyo cillado ku dhaca muruqyada wadnaha iyo xidhe waa maxay waa valve af soomaaliga ugu soo dhow valvena waxa weeyaan waa meel waa wax xidha wax qulqulaya inta badan waa sidaa waa wax loogu talagalay waa marin xidhan ama albaab xidhan oo mararka qaarna furma mararka qaarna xidhmo wadnuhuna wuu leeyahay waayo wax loogu talagalay dhiigga wadnaha maraya jaambaradiisa markaynu hadhow insha allah anatomiga iyo physiologiga dhiganayno ayaynu si cad u fasiraynaa wadnaha qaybihiisa iyo shaqooyinkiisa laakiin intaan idinku soo kobaya waxa weeye valvekaasi sida qasabadan guryaha biyaha qaada ama gaasta qaada meesha laga xidho ee magaranaysaa laga kontaroolo biyaha markii la doono la iska xidhi karo taasoo kale oo valve ah ayuu leeyahay wadnuhu oon dee sida qaabka ahayn laakiin ka qaab duwan valveka waxaa loogu talagalay dhiiggu inuu dhinacaa unu dhaafo oo hadday dhacdo dhiig soo noqonayaa aanu soo noqon karin marka dhiiggu saa u dhaafo wuu isxidhayaa marka valve halkan uga jeedna waa kaa marka waxaa la yidhi heart disease waa cudurro badan oo saameeya yani waxyeello u geysta wadnaha marka lagu daro nusqaan iyo cillado ku dhaca muruqyada wadnaha iyo xidhaha valveka iyo weliba dhibaatooyin ku yimaada xawaaraha garaaca wadnaha macnaheedu waxa weeye xawaaraha garaaca wadnaha ee ilaahay ugu talagalay almost per second inuu dhiigga ku tuuro dhiiggaasna macnihiisu yahay inuu nafaqadii iyo nuxurkii gaadhsiinayo unugyada ayaa mararka qaarkood markay cillada ku yimaadaan jirka ama wadnaha ayuu garaac xaddaaf ahoo uu qofkuba dareemayo inuu wadnihiisu xoog garaacayo ayuu sameeyaa mararka qaarna sidii wadnuhu wax dhacaya ayuu si daciif ah u shaqeeyaa marka xawaarihii iyo rhythmkii uu wadnuhu ku garaacmayey ayay wax iska bedelayaan cilladahaas ayaa iyagana la yidhahdaa baynu physiological diseases noocyada saddexaad ee soo gelay waxa weeye cudurrada loo yaqaana dhinaanta cudurrada dhinaantana englishka waa kuwa lagu yidhahdo deficiency diseases markaa tusaalayaal baynu ka soo qaadanaynaa calciumtu hadday dhiman tahay waxay keentaa baa la yidhi cudurrada lafaha ee loo yaqaano osteoporosisna macnaheedu waxa weeye waa lafa khafiif waxay keentaa rickets oo isaguna calaamado badan iyo cillado badan leh waxay keentaa tetany oo ah hypocalcemia ama loo yaqaano hypocalcemia macnaheedu lafteedu waxa weeye waa calcium yari weeyaan ama calciumtii anagu calciumta nidhaahno ayaa yar marka cilladahaasoo dhan calciumtoo yar ayay ku imanayaan iodine yari oo keenta goyta cudurka goytada la yidhaahdo oo ah buradan ka soo baxda cunaha qanjirka thyroidka hadii jir dul fuushan taasaa keentaa baa la yidhi markay iodintu yaraato iodintuna waa macdanta kale la yidhahdo selenium ayaa jirta oo iyana markay yaraato keenta cudur la yidhahdo Cushing disease cudurrada kuwooda commonka ah casharada dambe ayaynu mid ugu kala dhigdhigaynaa marka imika waqti badan idinkaga lumin maayo ujeedada aynu uga jeednay casharkan koowaad waxaa horudhac inaynu fahanno siyaabaha kala duwan ee loo kala qaybqaybiyo cudurrada iron yari ama iron deficiency oo macnaheedu yahay
macdantan ironka la yidhaahdo ee dhiigga aad ugu lug leh ayaa markay yaraato iyana waxay samaysaa anemia ama dhiig yaraan. waxaa kaloo jira zinc ama zinc yari deficiency waxay keentaa baa la yidhi growth retardation. growth retardation af soomaali waxa weeyaan waa kornin xumo, waa qofka maxaa la odhan jiray ragaasaya oo daciifayo kori waaye wey, ayaa markay zinkidu yar tahay qofku uu ciladaasaa ku dhacda. thiamin oo hadday yaraato baa la yidhi waxay keentaa cudurka la beriberi. vitamin B3 da lafteedu hadday yaraato ama niyaasiinta waxa la yidhahdo niacin waxay keentaa cudurka la yidhahdo plaquera. vitamin C hadday yaraato waxay keentaa scurvy. marka halkaana cudurrada ku yimaada deficiency-ga ama dhinaanta macdanaha iyo nafaqooyinka ayaynu ku aragnay. marka 4 nooc baynu nidhi waxaanu soo aragnay imaka cudurradii la odhan jiray saddexdii qaybood hore infection diseases cudurrada caabuqa leh, waxaanu kala soo aragnay physiological diseases cudurrada ku imanaya xubin ama waax ama qayb jirka ka mid ah oo qaabkeeda isbedelay ama sidii la doonayay aan u shaqaynayn. waxaanu kala soo aragnay cudurrada ku imanaya deficiency-ga ama dhinaanta macdanaha iyo nafaqooyinka. ta ugu dambaysay afraad waxa weeye cudurro la yidhaahdo hereditary diseases, waa cudurrada ku imanaya ama laysugu gudbiyo xagga waalidka ka imanaya ee dhalmada laysugu gudbiyo. heredity yani waxa weeyaan heredity waa wax la iska dhaxlayo wey. marka cudurrada iyagana waxaanu ka eegaynaa haddii lahayd ma dhowr mid. cudurrada waxaa ku jira markaa kuwa genetic iyo kuwa kaleba. cystic fibrosis waxaa ka mid ah alpha and beta thalassemia, waxaa ka mid ah sickle cell anemia oo ah cudur aad u xun oo unugyadu ay qaab sickle sameeyaan. sickleku wax weeyaan waa bahal yaambadoo kale ah laakiin ka duwan oo iyada lafteeda beeraha loo isticmaalo oo sida bisha dayaxa markuu cusub yahay oo kale dhinac ka maqan dhinacna u jiifta oo bil ah. markaa sickle cell anemia unugyadii baa saa noqonaya si aad u qariban ayuu qofku dhiiggiisu u dhinaadaa, laakiin calaamado badan oo kalena wuu leeyahay qofkaasi. Marfan syndrome ka mid ah, fragile X syndrome ka mid ah, waxaa ka mid ah Huntington's disease, waxaa kaloo ka mid ah hemochromatosis cudurka la yidhaahdo. dhammaan cudurrada waxaa la aaminsan yahay in la iska dhaxlo. insha allah haddii lahayd macashirkeena labaad ayaynu kusii kala dhigdhigaynaa qaybaha kale ama siyaabaha kale ee loo kala qaybiyo cudurrada. kan intaasaynu kusoo gabagabaynaynaa. asalaamu calaykum waraxmatullah.